guud ahaan baqaarada Yurub jaaliyadaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muddo kordhinta loo sameeyay golaha sharci dejinta iyo xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gaar ahaan dalkan Faransiiska haddii uu ku dhaqan oo fikrado kala duwan ka dhiibtay waxa hadaladoodii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim halka waxaan oo ka hambalyeynaa golaha guurtida Soomaaliland golahaas oo ah golaha Soomaaliland ay dheer tahay geeska iyo Afrikaba go'aankii midhadhalka ahaa ee ku soo afjareen khilaafaadkii waddanka ka jiray kaas oo ay markii xisbiyada mucaaradka iyo dabcan komishinkaba cadeeyeen inaan doorashada xilligoodii ku qabsoomaynin waxaan odhan karaa waxay ku beesgarayeen go'aankooda waqtigii ugu loojigsanaa ama ugu muhiimsanaa qolyahan xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay dadkeenu umay bislaan sida had iyo jeer ku hal qabsataan beesha caalamka dadka caalamku way u bisleeyeen mudaharaadada dadkeenu mudaharaadada uma bisla khasaaro badan baa inaga inaga soo baxaya mucaaradku waxaan odhan lahaa dalka la xijcelo u yeesha ku qanca waqtigana waqti saa u fog maaha ninka kursiga doonaya haddii aanu waddanku nabad ahayn oo aanu kala dambeyn iyo nidaam jirin dee meel uu madaxweyne ka noqonayaaba ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Muwarig Muuse Maxamed oo ku nool dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Angers waxaan halkan hambalyo uga dirayaa marka hore golaha guurtida Soomaaliland oo ah golaha marjaca ee dib loogu noqdo marka arrimo xal u baahan ay yimaadaan sida tan shalay dhacday oo kale waxaan aad ugu hambalyeynayaa muddada sanadka iyo 10 bilood ay u kordhiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa ognahay dalkan dhibaato badan iyo hawl badan iyo rafaad baa loo soo maray waxa uu ku dhisan yahay waa isu tashi iyo ismaqal buu ku dhisan yahay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland odayaashu may seegin halkoodii way mareen baan anigu leeyahay cid kasta oo dalka khas iyo dhibaato ka wadan anigu waxaan leeyahay inay ka digtoonaadaan baa wanaagsan waa ogtiin geeyga aynu ku noolahay dhibaatada hareer walba inaga xigta iyo nabadda aynu haysano wax walba waxa ka qaalisan nabadda waxaan anoo ku hadlayaa hay'adda cusub ee aan ka sameynay gobolkan ee Baydil Alwaax waxaan aad u soo dhaweynaynaa muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaan aad ugu hambalyeynaa guurtiga golaha guurtiga sababtoo ah iyagu dhinac kasta ka eegay nabadda waddanka oo sababta ay u kordhiyeen loo sameeyay nabadda waddanka wax kastana waxa ka muhiimsan marka hore in nabadda waddanka la eego waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa arrinta muddo kordhinta sababtoo ah waa arrin loo baahnaa muddo kordhintu waayo waxyaalo badan oo caqabad ku ah doorashadii oo ahayd in hore loo dhameeyo oo baaqsaday oo imika hawshoodii aan laga gaarsiin karin haday tahay xeerka baarlamaanka xeerarkii lagu soo dooran lahaa guurtida waxa soo dhamiyadoo ay ognahay inay jiraan waxaan odhan karaa anigu dhinacayga waa arrin aad loo baahnaa ay golaha guurtida iyagoo ka talinaya nabadda waddanka ay u kordhiyaan baarlamaanka iyo madaxweynahaba arrinkan muddo kordhinta ayaa ahaa ku walwal iyo cabsi fara badan ku abuuray qurba joogga reer Soomaaliland ee ku dhaqan daafaha dunida dalka Faransiiska oo TV-ga qaranka Soomaaliland oo kula kulmay jaaliyada halkaas ku dhaqan ayay ahaayeen daawadayaal kuwaasi iyaga oo siyaabo kala duwan uga hadlay sida ay u arkaan muddo kordhinta loo sameeyay golaha sharci dejinta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa waa Jamaal Cabdi Ibraahim telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Paris